Assalaamu calaykum habeen wanaagsan iska warrama fiicantiin asxaabta caafimaadkiina idinkii caruuriya xaafadiiniya dhammaantiin iska warrama khayr badan baa idiin rajaynayaa qofkii aan garanayn magacaygu waa Faaduma Naasir Cali waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada channelkayga gacmo furan kusoo dhawaada waxaa jira dad i weydiinaya maxay ahayday sideed u bilowday channelka maxaa loo baahan yahay waxyaabaha loo baahan yahay muxuu yahay marka halkan waxaan usoo fadhiistay maanta inaan idin macneeyo ama idin fahansiiyo waxyaabaha aad u baahan tahay haddii aad rabtid inaad YouTube channel furatid meel kastoo joogtid maxay ahayd ama joog Africa ama joog waddanka doontid joog waa simple easy waxyaabo fudud ba channelkaaga u furan kartaa laakiin waa inaad la timaadid yacni wax muhiima ood ka hadlaysid oo dooratid waxaad ka hadlaysid ma dadka qaar game bay ciyaaraan dadka qaar waxay sameeyaan maxay ahaydey ruwaayaday matalaan dadka qaar nolosha waaqiciga ka hadlaana podcastya sameeyaan dadka qaar waxay sameeyaan oo kale muxuu ahaa sida anigoo kale dee talooyin bay bixiyaan waalidiinta hooyooyinka muxuu ahaa qaababka dee ilmahaaga aad ula macaamili lahayd waxa jira oo kale dad maxay ahaydeen barankya sameeyo oo meelaha carcarara iyaguna dadka qaar waxaa jira iyaguna shoppingka un ka shaqeeya iyo marketingka iyo maxay alaabaha brodhagan cosmeticska dumarka laisku qurxiyo iyo beauty stuffka dadka qaar siyaasad bay ka hadlaan oo siyaasaddaasay dhex cararaan oo dee waa kaasoo kolba meel bay dadka qaarna comment waxay sameeyaan comedy waxyaabahan faniga dee ee inta fiidiyoya soo qaataan bay soo dhigaan oo dee reaction laga bixiyaa marka qaabkaad doontid aday kugu xidhan tahay aad u isticmaalisid youtube-kaaga dadka qaar xitaa cunto karin bay ka dhigaan oo cuntooyinkaasaa lagu kariyaa dadka qaar dee waa geerashlayaalo geerashkooga iyo mashiinada iyo birahoogaasi soo bandhigaan dadka qaar waa macalimiin oo casharada unbay kasoo gudbiyaan adigay kugu xidhan tahay muxuu ahaa channelkaaga tobigyada aad kusoo gudbinaysa ama waxyaabaha aad ka hadlaysid ama adeeg ama service ama ha noqdo muxuu ahaaye product baa ugu isticmaali kartaa marka aday kugu xidhan tahay shayga koowaad eed u baahan tahay youtube-ka inaad samaysatid waa google account inaad yeelatid macnaha gmail inaad samaysatid oo dee youtube-kaaga kuugu shaqeeyo gmailkaas waa number 1 inaad lahaatid waxaa kale ood u waxaynaysaa kaaga inaad magac ula baxdid magac unique ah ama qurux badan imika anigoo kale waan soo socday kolba meel baan u booday Fatuma Resilient ayaan ka dhigay iyo cultural differenceska dhaqanada kala duwan iyo Faadumo adkaysi af Soomaali haddaan ka dhigo marka aniga channelkayga waa kaas oo design baad u samaysanaysaa waad qurxinaysaa sida facebooka loo hagaajiyo kala dee wuxuu leeyahay coverkii iyo wuxuu leeyahay halkii profile picturekaaga aad dhiganaysay waa inaad bioga haddana aad qurxisid adu dee aad hadalka waxaad aad ka qabanaysid aad ku macnaysatid halkaas iyadoo halkaa weeyaan taasi waxaa ku xigta muxuu haaye qalabkaad u baahanaysa haddana qalabkaad u baahanaysid waa microfonekan aan ku hadlaya imika ma arkaysaa jab yar buu wataa anuu imika waxaan haystaa dee kii horaan idin tusi waa kan kaygii hore isagana waan isticmaalaa markuu kan batteriga iga dhammaadin iloobinaan charge gareeyo waa kan waa microfonekaas yar waa waxa ugu hooseeya lacag badanna kaa geli inaad ku furan kartid iyo jabkaa yar buu wataa oo halkan ka gelinaysid iphone haddaad haysatid waa kaas waa microfonka shayga koowaad eed u baahan tahay waa microphone shayga labaad eed u baahan tahay waa lightingka lightkaas waa kii ugu horreeyay en soo iibsado en ku isticmaali jiray marka imika lightkaas ma isticmaalo marmar baan isticmaalaayo on rabo light badan inaan helo ayaan ku isticmaalaa lightkaasina waxa kale oon soo iibsaday ahayd tan mobilka la dul dhigo waa intii ugu horreysay ee dee intaanan howlaha kala gelin waa kan mobile holderka tii mobilka la surayay oon iyadana mobilka intaan surada isu istaago mobilka aan maxay si fiican mobilkiisa waa taas tii mobilka la surayay iyaduna waa kuwii ugu hooseeyey ama shaygii ugu horreeyay waxyaabihii aan soo iibsaday ayay saddexdaasi ahaayeen oon ku bilaabayna youtube channelkayga lacag badanna ma aha oo wax yar lacag yar weeyaan dee qofkii awooda u iibsan karaa muxuu ahaa markaan intaa soo iibsaday maxaa ku xigta haddana waxaad soo iibsanaysaa dee youtube-kaaga khalaas aad bilowdid ba ilaa dhowr video aad bilowdid waa tanna waxa weeyaan waa tii selfiga waa tan waa tii selfiga iyadna light bay wadataa halkaa dusha sare laga geliyo waa selfiga
way kala baxaysaa naa furmoonaya waatan kor bay u baxaysaa wataa iyaduna oo way dheeraanaysaa waa selfiga markaad dibadda joogtid oo kale ee cidina kula socon deedna kaa duubayn intaad meel yar istaajisid baad iyadana isaga duubaysaa oo waa selfiga qofka keligii markuu yahay dee cidna la socon ama aad adeeganaysid ama aad qaadan kartid mar walba boxka isdaba sida aniga boorsadeeda igu jirtaa waayo maadaama aad rabtid inaad creator noqotid ama wax duuduubaya waxaaga ina seetid habeen iyo maalinba intaas weliba bahaladan mikrofoonada iyo laydharku waa la jaaj garayaa oo xadhkay wataan iyagona jaajarkooga waa kuwan way kala duwan yihiin mid walba digaar weeyaan xabadeeda kale waa kaas intaasa ku bilaabay intaa markaa qofku laakiin waa inuu haysto laptop waa inaad haysatid markaad edit garaynaysa ama mobilkaagaad ku hagaajin kartaa mobilkaagaad ku edit garayn kartaa videoga hagaajintiisana equipmentka markaa intaasaad u baahan tahay lightkana markii dambe waxaan soo iibsaday kan muxuu ahaa ringiga iminka isticmaalaya ee goobada ee light kale muraadeedu ka dhex arkaysi maan malaya taas maxaaban idinku daalin wakaa lightkaasa markii dambe soo iibsado oo iftiin badan le isaguna oo iftiin badan ii samaynaya qodobkii markaan intaas soo iibsano maxaa hadhay waxaad samaysanaysaa software aad ku edit garaysid fideoyadaada animika waxaan isticmaalaa muxuu markaan mobilka ku isticmaalayo CapCut-ka oo sanadkii waxaad bixinaysaa $90 already dawaaba iga goosteenba oo waxaa lagu siinayaa 7 cisho bilaash ah ciddii Mareykanka joogta inta kale laakiin waa lacag oo 7 cisho markay dhammaato waa inaad lacagta iska bixisid CapCut-ka ciddii Afrika joogta Afrika waa u bilaash oo walaalahay bay isticmaali jiray laakiin halkan waa lacag marka $90 baan bixiyaa sanadkii dhan ayaa $90 ah marka waa kaas CapCut-kaasaan ku isticmaalaa laptopkaygana waxaa igu jira program kale oo haddaan rabo inaan dee sii hagaajiyo oo sii balbalaariyo aan ku edit garayn karo oo aan ku isticmaala isagana waxa kale oo intaa dheer waa inaad macnaysid muxuu ahaa video kasta markaad soo upload garaynaysid waa inaad macnaysid isagana muxuu ahaa muxuu ka hadlayaa waa inaad scriptiga qortid ood meesha ku qortid definitionka marka halkaa maalin kale idiisii macnayn doonaa waa sheeko dheer inaad laakiin channelkaaga aad sheegtid wuxuu ka hadlayo ood ku qortid weeyaan meesha waa inaanad week walba xitaa dad wax soo upload garanaysa week kasta aad soo upload garaysaa ama aad video soo duubtaa ama shortiga isticmaashaa ama aad meesha doontid ku isticmaal dee waa kaas intaas waaba waxyaabaha ugu fudfudud ee ku bilaabi doontid channelkaaga hawl saa u fara badan uma baahna laakiin wuxuu u baahan yahay maskax yaa qalab fara badan ama aad investment gelisid uma baahna laakiin wuxuu u baahan yahay maskax iyo fikir iyo dadaal iyo karti iyo inaad waxan aad ku adkaysatid shaqadiisa ood wadid oonad ka caajisin ayuu u baahan yahay YouTube-ku marka hooyooyinka ama dhalinyarta ciddii u baahna YouTube furtaan oo aniga idiin sheegay qaabkaad u furan lahaydeen YouTube-ka dadka qaar baa odhan jira Afrika markaan joogo $1,000 baa lagu furtaayo walaa lacag la iskama geliyo $1,000 kuma furanaysid waa bilaash gmailka iyo waxaan kuu sheegaad samaysanaysaa aday kugu xidhanta markaa shaqadaadu qaabkaad u rangaraynaysid businesskaagan aday kugu xidhan tahay inaad dadaashid ood meel dheer gaadhsiisid iyo inaad ka seexatid dee waa kaa alaabteedana marka boorsadaasa ku gurtaa meel walboon tago way raacdaa dee xagaasay igu jiraan qalabkaygu marka dee waa idinkaa ciddii rabta YouTube inay furato waa simple and easy topic fiican baad la imanaysaa wixii ku cajabiya isleed ku fiican tahay oo waad ka shaqayn kartaa oo waad samayn kartaa ayaad ka shaqaynaysaa waad soo gudbinaysaa dee waa kaa waa inaad si fiicanna u hagaajisid videogaaga ilaa intaad ka baranaysid dee waxaan ilan wax lagu soo dhashay maahina wax walba waa la bartaa adduunyadani adigoon waxba kala garanin baad soo dhalanaysaa waa lagu soo hagayaa hooyada iyo aabaha dhinacan ka kab dhinacan kale afka bar soo daadaho dee waa daadahadii unbaa lagu jiraya ilaa inta laga dhimanaya adduunyade dee aanu wada soconno walaalo marka waxa kaloo idinka iloobay equipmentkii waxaa markaad soo iibsatid waxaa ugu muhiimsan qaabkeed kamarada u hor fadhiisanaysaa waa haddii aad wejigaaga rabtid inaan la arko muxuu ahaa aniga horta waxay igu qaadatay inaan kamarada saa usoo hor fadhiisto oon hadlo
wallaahi 2 bilood way noqonaysaa. 2 bilood oon maalin walba is-train garaynayo oon saa u hor fadhiisanayo oo kamarada indhahayga waxaas odhan jira qofkan nama waalatay haddaba ma keligaa bas la sheekaysanaysaa. Wallaahi way igu adkayd, aad bay igu adkaydoo maan garanaynba ii sheegaysaan intaan yacni public xitaa iskuulka intaan dhiganay anigu waan necbaa inaan public saa usoo istaago dadka aan waan nixi jiray, naxdin baan lahaa, waan qaboobi jiray, waan kala iloobi jiray xitaa waxaan sheegaya iyo waxaan ka hadlaya iyo yaa markaan jaamacadda ku jiray baaban yara adkaadan u maleeyaan shaqada bilaabay anigoo yar ayaaban yara dhaamay oo dee marka presentation soo jeedinaysa waa inaa hadashada indha adeegtid dee laakiin waan nixi jiray oo waan necbaa xitaa inaan macalinka jawaabta aan siiyo. Imika laakiin waa caadi dee waa wax walba waa la qabsiyo barasho makarafoonka saa u qabso saa usoo hor istaag sidii waxaad la hadlaysid qof oo kalen baad ka dhiganaysaa oo suurtaysanaysaa inuu qof aad la hadlaysid qofka hor fadhiyo dee waa kaas waqti bay qaadanaysaa laakiin marka dambe kuu fududaanaysaa waxaad is arkaysaa adigoo hadlaya oo dudubinaya oo gibirsanayn oo waxba ka cabsoonayn oo hadalka soo xasuusanayn waxay ka mid tahay nolosha casharada dadka barayso yaa dee waa idinkaasee ciddii u baahan youtube channel ay furato dee waad yaa kusoo yaacaysaan waad furanaysaan yaa idinku soo dhaweynaynaa laakiin dadaal fara badan bay u baahan tahay youtube-ka la iskama furto xataa youtube-ka markaad furtay waaniga dawakhay cid maxay ahayd markaad youtube-ka gashada kolba qof balaayo lagu akhrinaya markaan waxbaba fahmiba waayey ayaa waxaan sameeyey buug baan soo iibsaday amazonta ka dalbaday dee waa kaa buugaasaa ihagay ciddii u baahan inay ishagaan iyaguna waa kaas buuggaas namuu fooraraa maymay waa sax waa kaas maxaa ku qoran the 10,000 subscriber strategy buuggaasaan iibsaday buuggaasaa ii hagay aniga oo ila socdo dee ilaa imikada waan dhameeyey akhriskiisii laakiin dee practicalka waa inaan sameeyo tiyarigii mar haddaan helay waa youtube-ka ku dhex dawaqaysaa qofba waxbuu kaaga sheegayaa qofba waxbuu ku akhrinayaa adigiiba ku dhex baahaya dee maalin walba video baa daawan waxaa iga fudud marka inaan buug iibsado buugga akhristo markaan fahmo dee practicalka aanu kacoon dee aan bilaabo hawshayda halkaa ka bilowdo dee waxaa la yidhi laysma xaaside walaalka wixii wanaagsan eed heshid waa loo gudbiyaa ama qaada ama iska daa marka waa kaas dee shaqo wacan baan idin leeyahay idinkiyo yaa kartidaada maca salaama habeen wanaagsan khayr badan baa idin rajaynaya hana iloobina youtube-kayga inaad subscribe tirahdaan share like commentkana ha iloobina igala bakhaylina waa inaad commentka ka tagtaan haddii aad ka faa'iiday uu ku cajabiyey fiidiyogan waxaan kuu soo gudbiyey comment fiican iga tag aad baad u mahadsan tahay habeen wanaagsan bye bye